السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألبرت إينشتين wuxuu dhashay 14 March 1897 wuxuu ku dhashay wadanka Jarmalka. Hooyadii iyo aabihii waxay ku dareen iskuul, laakiin waxa uu ahaa dibjir. Waxa uu ku dhacay imtixaano fara badan. Macallimiintiisu waxay maalin kasta ka caban jireen dabeecad xumadiisa iyo dibjirnimadiisa. Waxa uu hadalka caadiga ah bilaabay markuu 4 jir ahaa. Yaraantiisii wax mu akhrin karayn ilaa uu 7 jir gaadhay. kadib carruurnimadiisii Jarmalka iyo Talyaaniga. Einstein wuxuu bartay cilmiga fiisigiska iyo xisaabta akademiyada farsamada gacanta ee Zurich, Switzerland. Wuxuu noqday muwaadin Swiss ah. Sanadkii 1905 waxaa la guddoonsiiyay shahaadada PhD. Haddaba markii hogaamiyihii Adolf Hitler uu noqday generaalka Jarmalka 1933 Einstein wuu ka noqday dhalashadiisii Jarmalka wuuna ka baxay wadanka Jarmalka. markii dambe wuxuu tegay dalka Mareykanka halkaas oo uu ku aqbalay shaqo ka socota macadka daraasaadka sare ee Princeton. sanadkii 1940 wuxuu noqday muwaadin Mareykan ah. sanadkii 1939 wuxuu ogolaaday inuu warqad u qoro madaxweyne Franklin isagoo wakiil ka ah koox saynis yahanaa oo ka walwalsanaa waxqabadka Mareykanka ee cilmi baarista hubka nukliyeerka. sida saynis yahanaa kale wuxuu ka baqanayay in Jarmalka oo kali ah yeesho hubka nukliyeerka. si kastaba ha ahaatee Albert Einstein wuxuu ku guuleystay qawaaniin cusub oo fiisigis ah wuxuuna sidoo kale soo saaray hubka casriga ah ee nukliyeerka. muuqbaahiyayaal kombiyuutarro iyo aalado badan oo aan maanta isticmaalno waxay ka soo burqadeen aragtiyo fiisigis ah oo isaga laga hayo. wuxuu noqday saynisyahanka qarnigii tagay. ugu dambayn hadalladii Einstein uu yiri tiraba 5 aan soo qaadano. isku day inaadan noqonin nin guuleysta, laakiin waxaad isku daydaa inaad noqotid nin qiimo badan. khibradda ugu quruxda badan ee aan haysan karno waa waxyaabaha qarsoon. qofka bani aadamka ahi waa qayb ka mid ah waxa loo yaqaan caalamka. noloshu waa sida fuulista baaskiilka. si dheelitirkaagu u sii socdo waa inaad dhaqaaqdaa. awood gaar ah ma lihi, kaliya waxaan ahay xamaasad cajiib ah. intaas ayuu ku dhan yahay muuqaalkii aan ka soo hadlayay ee ku saabsanaa Albert Einstein. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.